بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحديث السادس عشر وحديثك لحي تبنات وأنا درسك لحي تبنات. حديث كان عاوة إن شاء الله وحوكها الله يا موضوع يسوحي هاي إلهي سبحانه وتعالى قفك وتوفيق دي سوافجيه إنه كتوصنا هذا منهج إلهي سبحانه وتعالى. إلهي وحي سفضود أدها وحي سفضود عرس أدها إلهي سبحانه وتعالى وهو وافجنا يا خير وهي كلمة كسر بحياتي u qasdo iyo tu u qasdinba. haddii addoonka uu noqdo addoon hayr muwafaq ah aan la waafajinin khayrka oo ilaahay addoonkiisa uusan noqonin oo sax ah oo manhajka ilaahay uu ku toosnaanin, carada ilaahay inuu ku dhex jirahayo wixii fudud iyo wixii culus oo ka imaadaba ay noqonayso wax naarta jahannama u jeediyo. sidaa daraaddeed nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: ina alcabda la yatakalamu bilkalimati min ridwaan illaahi laa yalqaa laha baalan يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا يهوي بها في جهنم. نبي وحير عليه الصلاة والسلام: إن العبد أدونك لا يتكلم وحكوها بالكلمة هذا ومن رضوان الله إله رالي أهانشه سئه كلمة ذا لا يلقى أوسن كفكرين لها بالا قلبي أوسن وحوين iyo taxadar iyo muxuu ahaaye qasad weyn uusan ka lahayn. kelimadaasoo yarfacuhu allahu ilaahay uu kor ugu qaaday biha bisababiha darajaatin darajooyin jannada dhexdeeda. wain alcabda addoonka kale layatakalam wuxuu ku hadli bilkelimati kelimadaasoo min sakhad illaahi ilaahay caradiisa laa yalqaa laha baalan uusan dan ka lahayn oo iska hadlahayo yahwii wuxuu ku hoobanayaa biha bisababiha kelimada darada fi jahannam. marka mawduuca xadiidka waxaa waaye walaalayaal, ilaahay subxaanahu watacaala qofka uu khayrka waafajiyo oo iimaan iyo camal saalix la imaado oo ilaahay sunnadii nabiga uu usoo dhiibay iyo manhajkii nabiga usoo dhiibay qabsado, wuxuu aanaya qof muwafaq ah, afkiisa khayr ka soo bixi, tilaabadiisa khayr ay tahay, jawaarixda ilaahay subxaanahu watacaala uu ku galladaysto o dhan khayr ay ka soo baxayaan. hadduu u qasdiya hadduu u qasdinba ilaahay uu khayr u qorayo. haddii uu noqdo qof qalloocmay oo manhajka ilaahay ka leexdo oo dhabar jeediyey, hadduu noqdo waxa ka soo baxo oo ficilkiisa o dhan wuxuu noqonayaa wax carada ilaahay uu ku kasbado. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay: maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. wax alla wixii qool oo qofka uu ku talafudo oo ku dhawaaqo waxaa ku sugan garbihiisa qofka raqiib catiid, waa malaa'ig ilaahay subxaanahu wataala waa lagaa qori. aayad kale ilahi wuxuu yidhi: qad aflaxa almu'minuun, waxaa liibaanay mu'miniinta aladiina hum fii salaatihim khaashicuun, kuwa salaadooda dhexdeeda ku khushuucayaan, waladiina hum cani illagwi mucriduun. lagwiga waa maxalu shaahidka. marka yacni hadalka handarbaqashka oo laga yaabo qofka inuu dadka qosashii iyo dadka farxi iyo waxa uu iskaga hadlo oo dan laga lahayn, laakiin maxaa la yidhahda waa lagwi. qofka mu'minka ah oo ilaahay tawfiiqda uu waafajiyo waxa carabkiisa uu kala xishooni kuma hadlahayo. meesha hataa lagu hadlahayo aayadan soo socota waxaan arki doonaa dadka mu'miniinta ah ilahay wuxuu leey: waladiina laa yashhaduuna azuura. meesha handarabaqashka iyo fadha kudirka hadda annaga aan u bixin wax walba lagaga hadlahayo ma tagaan. waidaa maruu bilagwi, meel lagwi iyo hadal aan sax ahayn lagaga hadlayna maruu kiraaman, ayagoo xishmad ku socdaan bay ag marahayaan. aayad kale ilahi wuxuu leey: waidaa samicuu lagwa acradu. mu'miniintu ayuu ilaahay tilmaamhayaa. dadka cibaaduraxmaanka la yidhaahdo hadday maqlaan lagwi, hadal aanan faa'iido lahayn, acraduu canhu way ka jeesanaan. waqaaluu waxay dhahnaan: lanaa acmaaluna walakum acmaalukum. idinkana shaqaad leedin, annagana shaqaan leen, isku shaqa ma nihin. salaamun calaykum laa nabtaqi ljaahiliin. nabadgelya ayaan idinku badbaadinayna. annaga waxba yani dhib xagga annaga idinkagama imaanahay. laa nabtaqi ljaahiliin, mana rabno kuwa aan waxba garanaynin, dantooda aan garanaynin. qofka dantiisa aan garanaynin waa qofka carabkiisa aan ilaalinaynin. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut. qofka mu'minka oo iimaankiisa uu kaamil yahay waa qofka
khayr ku hadlo ama ha iska aamuso. qofka khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso, waa ficil amr. falyaqul khayran aw liyasmut. nabiga calayhi salaatu wasalaam abu muusa alashcari ayaa weydiiyey ayu lmuslimiina afdal, qaala wuxuu yihi man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi, waa qofka muslimiinta ay ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa. sidaa daraaddeed nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu oga digay dadka muslimiinta carabka. wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam, cuqbat bnu caamir nin la yidhaha radi allahu canhu ayaa yihi yaa rasuulallahi man najaat, maxaa lagu badbaadi? asxaabta fikirkooda o dhan aakhare wixii lagu badbaadi lahaa umay ka fikiri jireen, murugtooda taasay ahayd. man najaat markuu yihi nabiga wuxuu yihi amsik calayka lisaanak, carabkaada qabuu yihi, dhabsi ka adkaw. walyasacka baytuka, gurigaadana ha kugu filnaado. wabki calaa khadiiatika, adi dembigaada ka o. dembi qof kale hebel baa saa sameeyey, hebel baa saa sameeyey, dowlad hebel baa saa samaysay, meel heblaha laga soo duuliyay, badha badha maxaa kugu wata? adiga dembigaada ka oo ka maarata ka dembi dhaaf weydiisay ilaahay subxaanahu watacaala. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi markuu waaga baryo, xubnaha jirka oo dhan waxay haystaan oo eedeyn hayaan ama ay ka beri noqon hayaan carabka. wuxuu yihi fa ina alacdaaa kulahaa tukafiru lisaan, taqul waxay leedahay ittaqi llaha fiina, ilaahay nooga baq annaga. fa inamaa naxnu bika, annaga adiga unbaan kugu xiranay, dhibka aad keenta unbaan ku gubanaynaa, khayr haddaad keentana jannaan kugu gelaynaa. ilaa waa la isku yaalla xubna wixii hadli oo dhibka keeni. fa ida istaqamta istaqamna, haddaad toosnaato oo xaqa iyo jidka aad ku toosnaato waan toosnaanayna. wa in icwajajta icwajajna, haddaad qalloocatan waan qalloocayna, ilaa gayri dalika min anusuus. marka aayadahaas iyo xadiistaas aan soo yar koobay waxay la macno yihiin oo ay xoojinayaan xadiidkan caawa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noogu bayaaniyey, uu noogu cadeeyey sala allahu calayh wasalam, muxuu ahaaye addoonka inuu wax kheyr uu carabkiisa baro, hadalka xunna uu carabkiisa ka ilaaliyo, si hadhow asaga oonba fikiraynin carabkiisa wax kheyr un iskaga soo baxo, ilaahayna uu darajo ku siiyo. sida hadhow isagoon fikiraynin haddii uu carabkiisa wax xun baro oo muxuu ahaaye noqonayo qof carabkiisa si fudud ooga soo baxo sayga sharta oo ku mutaysnay naarta. ilaahay naarta naga badbaadiya subxaanahu jala jalaaluhu.